aaladii loo isticmaalay dilka hogaamiyey xamaas ismaaciil haniye ayaa la kashifay. aaladan ayaa aqoonsan karta wejiyada dadka la bartilmaameedsanayo iyadoo loo adeegsanayo aqoonta aqliga artificialka ee siloon. waa la calaamadsanayaa diiwaanka dad la rabo in la khaarijiyo. aaladan ayaa kala hufta malaayiin macluumaad sirriya oo ay soo gudbiyaan sirdoorka reer galbeedka oo adeegsanaya satellite-ka sida guryaha, dhaqdhaqaaqa qofka, aaladaha baraha bulshada oo qofku ku xiriiro sawirada, qaraabada, xiriirka qoyska, caadooyinka qofka, saaxiibadiisa iyo waxyaabaha uu xiiseeyo. aaladan oo sirdoorka Israa'iil isticmaaleen ayaa lagu magacaabaa Lavender, waxaana aaladan la geliyaa dadka Israa'iil qorsheynaysa inay disho. guutada 8200 oo ku takhasustay wardoonka xagga shabakadaha internetka iyo hirarka xambaara shabakadaha isgaarsiinta baraha bulshada ay ku xiriirto, waana la tilmaamay in aaladan Lavender loo adeegsaday dilka Ismaaciil Haniye iyadoo macluumaadka iyo xogaha goobta uu ka degan yahay ay bixiyeen kooxo ka tirsan sirdoonka ilaalada kacaanka Iiraan iyo mudanayaasha warbixinada tabiya ee loo yaqaan Horrible Correspondent oo toos ula xiriira CIA-da Mareykanka oo si xirfadaysan dabadeeda siraha ula wadaaga ciidamada Israa'iil. waxaana loo badinayaa in kooxo gudaha Iiraan degan ayagu gantaal liishaaman ay goor habeenimo uga geliyeen daaqada. waana taliyay hore sirdoonka Iiraan uga digay madaxda Iiraan iyo cirda martida u ah inay khatar ku jiraan heerka galaangalka Israa'iil ay ka gaadhay caasimadda Tehran. waana kooxda dilalka fulisay iyagu Ismaaciil Haniye ay ka soo raaceen fagaare uu booqanayay oo loo keesiyay masjidka barakaysan ee Qudus, waana halkii loo kaxayn lahaa hotel caalami ah. ay kooxaha sirdoonka ilaalada kacaan ku dejiyeen daar ku taal waqooyiga Tehran oo lagu maamuusi jiray ciidamadii hore ee howlgalka noqday Iiraan xaggaas oo gantaal lagu soo hagay. waxaana muuqata in sirdoonka Israa'iil iyo Mareykanku ay unugyaha laaban ka dhex samaysteen goobo ka mid ah caasimadda Tehran, iyadoo Iiraan iyo ilaalada kacaanka aysan marti dambe ay maankeeda isku halayn doonin oo la wadaag asxaabtaada.